tusaalahan saddexaad ayaan haysanaa oo ku saabsan differentials. nala ka rabo inaan raadino derivative-ka nala ka rabo inaan raadino dy. marka dy waxaan isticmaalaynaa formulada tan. dy waxaa lagu helaa f prime of x. marka koobaad functionka ayaan derivative-kiisa raadinaynaa, kadibna waxaan ku dhufanaynaa dx. marka functionkeena hadda waxaa weeyaan x y is equals to intan soomaa. marka qeybtan ayaan derivative-keeda raadinaynaa, kadibna waxaan ku dhufanaynaa dx. marka waxaan sameynaynaa hadda labada dhinacba derivative-kooda ayaan raadinaynaa. marka d oo laba dx of y ayaan raadinaynaa oo qeybtana, kadib waxay la mid tahay derivative-ka d oo laba dx oo qeybtan ah oo qeybtan ah. marka qeybtan waa iska x lagu dhuftay the square root ka 1 minus x squared. marka derivative-ka ama dy, derivative-ka y waa iska dy all over dx waxay la mid tahay. marka derivative-ka midkan maxaan isticmaalnay? marka midkan waa product function, waa x oo function ah lagu dhuftay functionkan square root 1 minus x squared. marka waxaan noqonaysaa inaan u isticmaalno product rule-kii. marka inta aan ku qoro, marka d all over derivative-ka y waxa weeyaan waa iska dy all over dx. marka koobaad derivative-ka kan ayaan raadinaynaa, kan sidiisa ayaan u daynaynaa. marka kan sidiisa aan usoo qaadanaynaa, marka waa the square root 1 minus x squared. kadib waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka midkan d all over dx of x. kadibna waxaan ku daraynaa kan sidiisa ayaan usoo qaadanaynaa, waa iska x. waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka d all over dx-ga qeybtan 1 minus x squared. marka hadda waan simplify garaynaynaa. marka dy sideeda ayaan usoo dejinaynaa, dy all over dx tan. marka kan sidiisa ayaan usoo dejinaynaa, waa the square root of, ama waxaan u qori karnaa 1 minus x squared 1 minus x squared raised to power a half raised to power a half. marka derivative-ka x waa iska waa 1. derivative-ka x waxa weeyaan waa iska 1. kadib x-tan sideeda ayaan usoo qaadanaynaa. derivative-ka qeybtan waxa weeyaan, marka middan iyadana saan ayaan u qori karnaa. 1 minus x squared raised to power a half. marka derivative-keeda waxaan u isticmaalaynaa outside inside rule-kii. marka a half-ka ayaan soo dejinaynaa. marka koobaad a half-ka ayaan soo dejinaynaa. functionka gudaha sidiisa ayaan usoo qaadanaynaa, waa iska 1 minus x squared. laakiin hadda power a half ay ahayd, halaan ka jaraynaa half-ka. marka waxay noqonaysaa power negative a half. kadibna waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka gudaha marka gudaha waxaan ku haysanaa derivative-ka qeybtan gudaha waa meeqa? waa iska minus 2x squared. minus 2x aan ka wadaa, waa iska minus 2x. waa iska minus 2x.
derivative-ka 1 minus x squared waa iska minus 2x. marka hadda waxaan sameynaynaa keliya waan soo simplify garaynaynaa. marka dy all over dx waxay la mid tahay, marka midkan sidiisa ayaan kusoo qaadanaynaa, waa iska raised to lagu dhuftay 1 marka waxba isma bedelayo, waa iska the square root of 1 minus x squared lagu daray. marka inta waxaan ku haysanaa, waxaan samayn karnaa 2 tan iyo negative 2 daas waan isla bixin karnaa by 2 1 by negative 2 negative 1. marka hadda negative x ayaa hadda meeshan waxaa noogu jira negative x weeyaan. marka negative x tan iyo x tan ayaan isku dhufanaynaa, marka waxaa noo soo baxaya minus x squared loo qaybiyey. marka tani functionkan waa raised to power negative a half, hoos ayaan keeni karnaa. marka haddaan hoos keenana waxay noqonaysaa 1 minus x squared square rootkeed square root aan iska dhahno because raised to power negative a half, negative half had hoos haddaan geyno waxay iska noqonaysaa positive a half oo la mid ah square root. marka ansadeenu hadda waxay noqonaysaa, waxaan rabnaa inaan helno dy keliyata. marka dy da inta waan ka tirtiri karnaa oo waxaan dhihi karnaa times dy, waxaan ka wadaa times dx times dx dhankana iyo times dx dhankana. marka dx ta dhankan way ka baxaysaa, waxaa soo haraya qaybtan oo lagu dhuftay ayada dhan dx. marka ansadeenu hadda waa sidaas, dy waxay la mid tahay intan oo bracket ku jiraan.